Qiyaamaha dunida iyo qorraxda soo baxdaaba waxa ay keentaa dhacdo kale iyo waayo ka duwan kii hore loo joogay isla mar ahaantaasina la hayay. Maalimo maalinta ka dambeysa waxaa dunida ku soo kordhaya isla mar ahaantaasina kor u kacaya aaladaha tiknoolajiyadda, isagoo aadamigu hayaankiisana meel sare ku hiigsanayo oo uu rabay inuu ku gaadho. Hase yeeshee, waxaad arkaysaa waxyaabo kaa yaabiya iyo weliba kuwo kaleeto oo fajiciya ama kaa kugu abuura isla mar ahaantaasina aad u qaadan weydo. Aadamigu tan iyo bilowgiisiba waxa uu ku jiray dadaal uu rabo inuu himiladiisa kaga rumeeyo. Aan ku soo dhaco warbixinteenani. Tani waa robot-ka gabadh-lamoodka ah ee la farsameeyay dhowaanna qabsatay social media-ha. Waa gabadh isla mar ahaantaasina qiimaheedu uu aad u sareeyo. Kumanaan iyo kumanaan ka mid ah ragga ay dumarkoodu ku filnaan waayeen isla mar ahaantaasina iimaanka beela ayaa u susumay gabadhani. Kooxdii farsameysay gabadhani robot-ka ayaa waxay sheegeen inay 3 cisho oo qurata ay ku dhacayso caadadu isla mar ahaantaasina ay la mid tahay dumarka kale. Waxaana la sheegay inuu qalbigeeda uu ka soo burqanayaan ereyo macmacaan iyo weliba kumanaan iyo kumanaan rumaati ereyo ah. Si kastaba ha ahaatee, robot-kani gabadh-lamoodka ah ayaa waxa ay aad ugu faraxsan dadka reer galbeedka iyo Yurubta degan. Maxaa yeelay waxa la sheegaa in ay qabanayso shaqada ay qabanayaan dumarku dhami ahaantiiba, kaasi oo ay ka mid tahay inay weelka nadiifin karaan, guriga ka shaqayn karaan, waxna ay qaban karaan, sida oo kalena lala xaajoon karo oo lala mucaamili karo. Waa waxyaabo ka yaabiyo oo ka ama kaagaya isla mar ahaantaasina aad la fajacdo.